qarax miino oo lagu aasay wadada dhinaceeda ayaa saaka ka dhacay mid ka mid ah xaafadaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana qaraxani oo ahaa miinada dhulka lagu aaso dhawaqiisa laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah magaalada Laascaanood ma jirto cid ku dhimatay qaraxaasi balse waxa uu burbur xoogan ka soo gaaray gaari noociisu yahay booyadaha biyaha u dhaamiya magaalada Laascaanood kaas oo xilligii uu qaraxu dhacay oo ahayd abaar 6 subaxnimo ee saaka marayay goobtii qaraxa lagu aasay waxaana gabi ahaanba uu burbur xoogan ka soo gaaray gaarigaasi walow aysan waxyeelo badan soo gaadhin dadkii gaariga la socday qaraxa dabadii ayaa waxa goobta soo gaaray mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sool iyo saraakiil ciidan kuwaasi oo goobtii qaraxa uu ka dhacay ka bilaabay baaritaan waxaana intaasi kadib mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sool iyo saraakiisha ciidamada qaarkood ay shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Laascaanood kaga hadleen qaraxaasi saaka ka dhacay magaalada iyagoo halkaasi ku soo bandhigay qalabkii iyo aaladihii loo adeegsaday qaraxaasi oo laga soo saaray goobtii uu qaraxu ka dhacay maxaan soo qaadanay oo isagana baaritaanka ka sameeynay baa la garan karayaa qofka wax weeyaan deeqeena marka deeqman sidii deeqideen baarka karayno dad iskaga mugtaagin koonaha dilida iskaga mugtaagin wax iskaga tagay koonaha gudaha ruuga wax weeyaan wax yar oo aan badnayn ka gaaray meesha wax ka dhacay waa halka wadada tuga ee adigu koonfurta ka geeda qarshay ee koonfurta ka marta magaalada Laascaanood inta saa'imka wax weeyaan waxa la hayaa dad laguma soo qabanin wixii qaraxa bilaabo waa ka isaguna waa taa kuwaas wax weeyaan iyaguna waa qaybtaas weeyaan waxaas wax weeyaan imika kanimaha waxa weeye saaka aroornimadii shantii barkii subaxnimo baa qarax wuxuu ka dhacay koonfurta magaalada Laascaanood qaraxa waxa weeye sida waragtaan waxaas lagu qarxiyay gaari dad shacab leeyihiin يرولتي كوبيها دامين شيء بويدا تذكر دامين شيء شعب كوا ديك شيء فلك سوا فلك عقد حسين سمين شتي يقوى إلى النار تكرز هي اللي هذا الشباب يا القاعدة وأنا عم بارين النار وابن هني سود دولين والدولات بلارن مركي كونفورتا يلا صنتي أم صنتي قصة عالية يدولد الفدرال أنا هلك كروسة شون وابنه وايد كنا لو بدون بنقال إنه وشوفنا qodobka kale waxaan shacabka reer Laascaanood u baaqayaa way arkaan waxa dhacay waa arkaan digtoonaada magaalada Laascaanood ayaa sanadihii u dambeeyay waxa siyaabo kala duwan uga dhacay qaraxyo iyo dilal kala duwan walow qaraxa saaka dhacay oo ahaa mid khasaarihiisu kooban yahay Axmed Saakin Farax TV-ga caalamiga Universal Laascaanood